leenahay waxaan u maleynayaa wax badan baydaan fahansaneen hadda fahansantina waa yeelaysaan tani waa adduunyo aakhirana way dambaysaa ayay dadka Soomaaliyeed waxay ugu mahmaaheen halla kala dhiman seediga gabadhaada iskuma hubtide waxaana hadda magaalada Hargeysa ka taagan sheeko u eg midaasi xildhibaan Barkhad Batuun ayaa waxa la sheegay inuu guursaday gabar lagu magacaabo Mushtaaq Cabdi Naani taasi oo habeenkii xalay ahaa warbaahinta la hadashay sheegtayna inay xildhibaan Barkhad isu guursadeen sifa sharci ah una yahay saygeeda waxaase hadalkaasi beeniyay oo warbaahinta la hadlay adeerkeed oo maanta sheegay inuu xildhibaankaasi sixray gabadhaasi uusan geeyin taasi oo ah gaf weyn oo uusan qaadan karin qof Soomaaliyeed oo ku nool dalkiisii xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo kamid ah xildhibaanada ugu saameynta badan ee Soomaaliland kana mid ah xildhibaankii ugu codka badnaa ee ka soo baxay halkaasi ayaa hadda waxa uu wajahayaa fadeexad aad u ballaaran oo kaga imaanaysa reerka ay ka dhalatay gabadha lagu magacaabo Mushtaaq Cabdi kuwaas oo ayagu hadda bartilmaameedsanaya sheegeen inuusan gabadhooda geeyin waxaan kula wadaagi doonaa Mushtaaq Cabdi Naani adeerkeed oo si adag warbaahinta uga hadlay iyo hadallada uu ku hadlay adigoo aan kadib kula sii wadaagi doono fariinta Mushtaaq ay xalay soo didhay runtii fal uu sameeyay ninka leeyo xildhibaan Barkhad oo uu kula kacay intaan waalidka oo adeerkaan oo ahay ayaa jiray falkaas oo ahaa midaan diinta iyo akhlaaqda iyo sharciga midnaba aan ma garanaysaayay waafaqsanayn haddaba iyadoo taa hore ay dhacday oo ninkaasi inantaa aan adeerka u ahay uu faraxumeeyey xaalad adagoo xunna uu ku sameeyey ayaa haddana waxaa dhacday inuu inantii qaladkaa uu ku sameeyey oo haddana inantii isaga oo aada mooddo inuu toojar garaynayo oo uu ku toojar garanayo ama ku abiyus garanayo in inantaasi waxyaalo ahaan imika hadalkee shalay keenay ay ku hadlaysay iyada isaga weliba uu isticmaalayo waxyaalo iyadoo aan shaqadeedaba ahayn maadaama dee had iyo jeer marka arrimo noocan oo kale ay iyadoo leedahay waa ninkaygii Barkhad waa caynkan dadka cadowga ah waxaana leedahay dee haddii wax dee sharci jiraan ama saxi jiraan dee isaga kii hadli lahaa ahaa ee odhan lahaa waa gabadhaydii isaga warqadda yar xulay beentaa soo qaadan lahaa odhan lahaa oo taa warqadii waxaa odhan lahaa haddaba waxaan u sheegayaa inantaan waalidka u ahay ee ninkaasi uu abiyus gareeyey uu xan ku sameeyey maaha wax aanu u dul qaadan karno oo diinta iyo dhaqanka iyo islaamnimada midnaba ay ogashay wax uu ku sameeyey marka hore lagu ciyaaro xildhibaanka Barkhad Jaamac Batuun si kale markaan u dhigana aniga laftigeyga ma aragtay sharafteediyana meel lagaga dhaco anoo qof dumara waxa weeyaan muhiim iyo qasabna aan ahayn mar kasta in ma aragtay hadii aan guursanayo iyo hadaan guursanahay dadweynaha ma aragtay ogaadaan iyadan qasab hay waxaan rabay inaan horta halkan ugu horeyn ka cadeeyo anigoo miirkeyga iyo maankeyga qaba in Barkhad Jaamac Batuun iyo anagu aan nahay laba qof oo markaasi istortay heshiiyay kadibna isguursaday wabacdayna ilmo Ilaahay ku arsaaqay waxaan leeyahay dadiyowga inta wax ka dhex raadinaya ma aha intan tii wax laga dhex raadin lahaa maaha nimanka siyaasadeynaya Barkhad baa gabadh guursaday aanay isku qabiilahayn oo ay uga jeedaan magayo qabiilada kale maadaama isugu qabiilka yahay waxaan leeyahay nimayahow dib isoogu noqda habla dhasheen ugu yaraan waa qabtaan waxa weeyaan waa la dhalateen haddaydan u dhixin waa u dhixi doontaan oo waa guursan doontaan marka intii wax laga dhex raadin lahaa maaha dib ku noqda baan leeyahay waxa kale aan sheegayaa anigu Mushtaaq ahaan waxa weeyaan waxyaabo waxa jira dhaqan 200 oo sanadood soo jiray waa run oo anigu shakhsiyan aan waxba ka qaban karin shaqo fara badan iyo hawl badan u baahan aniguna aanan dabcan ahayn qof keligii jabin kara deerka caynkaas waxaan samoodayay in ay 200 oo sanadood kadib sidii dhaanto oo isma lahayn 40 sanadood ka hor ama 30 sanadood ka hor caynkii lahaa ayaa istii leeyahay oo dhalinyaro fara badan oo wax baratay wax fahmay ayaan islaha way kamid yihiin dad iyagu wax fahmay inaan waxba ka jirin dhaqanka caynkaas anoo miirkeyga iyo maankeyga qaba ayaan guursaday Barkhad caadiyan anigu dhaqamada caynkaas ay dad iyagu aaminsan yihiin
shaqsiyan ma aaminsani waana sababta keentay inaan anigu ninkaasi aan ku qanacsan oo waxa weeyaan soo jeeda oo sixranayn oo waxa weeyaan caafimaadkayga qaba maskaxiyan iyo waxa weeyaan jir ahaan baan oo qaba inaan guursado oo markaas heshiino taasi waa taa inan qof dumara oo waxa weeyaan intii meediyaha timiday tiri warqadii laygu meheriyay baa tan ah waa dareemi kartaan waxa keenay halka waa nimanka siyaasadeeyay waxa weeyaan in sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo waliba tayada lagu ciyaaro lacagayowga ku bixiyay markii la yiri hagaajiye shaqooyinkiina lacagayowga ku bixiyay in markaasi ninka waxa weeyaan leeyahay halala kaco simbal marka warqadii aan anagu isku mehersanay baa tan ah sababtaan u keenay meediyahana waxa weeyaan maadaama oo ilmahayga ruuxu jira ku dhawaad 6 bilood waxa weeyaan bishii lixaad wax yar baa uga dhiman 6 biloodna Soomaali Maxamed gaar ahaan dadyooga siyaasadda ku jira oo wax way ayaa qaabab kala duwan u adeegsanayay marka arinkaygaasi anagu de qasab ma haynan meediyaha inta nimaadna anagu waan iskuursanay ama meherkaygi baa halka ka dhacay wax qasbayaan u garan maayo qasabna ma ahayn barkhadad baan ka dhashay weydiistay dadkiiba markii daba lala dagaalayo leeyahay siday ku dhacday nin caynkaas inuu gabadh caynkaas guursado diidaysan ugu garan maayo waa nin Soomaali muslima isku dhaqan nahay de waxa weeyaan isku bi'aadnaan nahay marka waxyaabaha sheegaysan anu garan maayo muhiimku waxa weeyaan inaan idin sheego in anagu iyo barkhadaan isguursanay oo markaas ilmaha ayagaan dhalayna ceebeynaysan madaragtay idinku caruur dhalay intiina badani waxa weeyaan hooyooyin iyo aabbo meeran ah hadeedan noqon doona ilmaha yar inta leeg waxa weeyaan ceebta iyo waa caynkan iyo sidan buu xaaladaba socotaan inaan idin idhaahno sida aad moodaysaan ma he waa caynka waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo nimanka leeyahay shaqadiina hagaajiye kadibna aniga sharafteyda iyo cirdigayga dhulka jiidaya hadii aad shaqadiina hagaajiye oo leeyahay wax weeyaan hablo sharaftooda u korkoreysaan oo lacag ku bixinaysaan in maxaa la yiraahdaa sharafteyda iyo qof bini aadam oo Ilaahay abuurtay rabbigiina sameeyayba intuu ina abuur hadanayna karaameeyay inta inagoo gaf iyo khalad maalin walba galayna astura maanagoon qalad galina waxa weeyaan waxa noo ceebaysaan noo daba joogtaan sharaftayda iyo cirdigayga dhulka u jitaan iyo karaamadan leenahay waxaan u maleynayaa wax badan baydaan fahansaneen hadaa fahansantiin waa yeelaysaa tan halkan imaado ma dhicin malaha baan u maleynayaa aniga inta ogaalkayga Soomaalida meediyaha inta qof soo fadhiisto ma oran warqadii liigu guursaday baa tan ama oraneen aniga hortay waa inta ogaalkayga warqadana ahsita waxaan u keenay meediyaha dadyooga la sifir qaldan bay isku guursadeen ehel baan ka dhashay anigu iyo dad baan ka dhashay ma jirto gabadh la iska guursada marka hore marka warqadani waxay cadeyn u tahay dadyooga hadalkaagaas aaminsan ee la sifir sharci daraab isku guursadeen dadyooga hadalkan baa waxa la warqadan baa jawaab u ah warqadii aan isku guursanay baa naga tan ah waxa ninka inta leeg kuwa cabaareenaya boqolkiiba boqol qaarkood ka cibaado badani inuu sifo sharci ama si qaldan gabadh u doonto ama u guursado waxaan u maleynayaa waa bini aadan horta uu qaldami karaa laakiin waa ninka majruurka ay dadka ma suurtoodo